بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة sologroups.com إلا قبرتو علميقا IT أما Information Technology إيكو بحلوقة دافك الصوماليقا ماقعيقو عبدالله اسماعيل إيميل كسيدة عددا info@sologroups.com و request lesson أما 10 أي سويديان قار كميدا أرديدا وحكا برتا sologroups.com و how to use a Java classes in ASP.NET ayaa arday soo weydiisay marka sidee lagu isticmaalaa adigoo haya Java classes in ASP.NET runtii waa kala duwan yihiin marka casharkan waxaan ku baran doonaa qaabka lagu isticmaalo oo ah si aad u fudud waxaan isticmaali doonaa C#.NET iyo Java code oo DLL ama Java code in DLL Visual Studio 2013 ayaan waxaan ku dhisi doonaa Windows application marka waxaan isticmaalaynaa application la yiraahdo ikvm.net waa open source ama waa software application free ama bilaash ah kaasoo wuxuu ku sameeyaa wax la yiraahdo Java for Mono iyo Microsoft.net ayuu isku xiraa wuxuuna ku ogolaanayaa in .NET application ahaa ama other way round oo ah Java application ahaa in loo isticmaalo tusaale ahaan haddii aad tahay developer waxaa laga yaabaa in shirkadda aad u shaqaysid ay ku tiraahdo multi-type application oo Java ku dhisan u bedel .NET dii lagu yiraahdo tusaale ahaan marka sida caadada ah waxa kaliya ee ku banaan waa in codekii aad qortid ama recording wax la yiraahdo aad samaysid wax la yiraahdo from scratch ama bilow ayaad ka soo bilaabaysaa recordingkii marka recordingkii sida u samaysid waa in aad ka soo bilowdaa from the start beginning inaad ka soo bilowdaa isla markaana aad u bedeshaa luqadda .NET-ka sida C# iyo wuxuu ahaadaba laakiin looma baahna shaqadaas badan haddii aad isticmaashid waxaa shaqadan ku fududayn kara ikvm.net ayaa ku fududayn kara marka wuxuu isugu jiraa ikvm.net waxa la yiraahdaa consist wuxuu isugu jiraa of the following three main parts saddex qaybood oo kala duwan kuwaasoo kale ah Java virtual machine implemented in .NET ayaa la yiraahdaa Java virtual machine implemented in .NET iyo .NET implementation of the Java class libraries kaasoo loo isticmaalaa iyo ugu dambeyntii tools tool that enables oo ku ogolaanaya Java iyo .NET in ay isla shaqeeyaan ama isdhexgalaan marka runtii aad ayuu muhiim u yahay haddii uu jiro qof ama shirkad isticmaasha code lagu sameeyay Java intii recording lagu sameyn lahaa ama la qori lahaa waxa wanaagsan in loo bedelo automatic ahaan iyadoo la isticmaalayo ikvm.net marka application yar oo calculator ayaan sameynaynaa kadibna qaabka ay isla shaqeeyaan oo ku baranaynaa marka wareen halkan waxaa noo yaala Visual Studio Ultimate 2013 oo aad ka download gareyn kartaan shabakada sologroups.com oo inoo fududeyn doonta qaabkaan u sameyn doono marka waxaan sameynaa project yar waxaan leeyahay file new project kadibna waxaan ku dhisaynaa Visual C# oo kan ah window application form halkana magac ayaan u sameynaynaa magacaas waxaan ka dhigaynaa C oo casharka u fududaado waxaan leenahay Java 2.NET kadibna waxaan ku daraynaa calculator ayaan ku daraynaa waxaan leeyahay calculator sidan ah ayaan ku daraynaa marka koodka ay isla shaqeynayaan iyo koodka kale ee DLL-ka ama dynamic link library waa noo yaala si ay isla shaqeeyaanna waxaan ku arki doonaa xilligan casharka sameynayno marka markii uu soo baxo application formka oo sidan ah waxaan sameynayaa extension ayaan ku sameynayaa si uu sidan noqdo kadibna waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay property ayaan leeyahay halkan ayaan imaanay text halkan u yaalo waxaanu ka dhigaynaa calculator ayaanu ka dhigaynaa ama xisaabe ayaanu ka dhigaynaa calculator sidana kadibna halkan haddii aan imaado wuxuu noqday halkan saa ku aragtid calculator ayuu noqday kadib waxaan tegayaa halkan toolska ayaan tegayaa waxaan ku soo jiidayaa hal button isla isagii ayaan waxaan ka dhigayaa copy
waxaan leeyahay paste labada button halkan ayaan saan u dhigaya marka waxaan doonayaa labada button inaan ka kala dhigo kan aan idhaahdo right click aan idhaahdo property halkan ayuu imaanayaa waxaan ka dhigayaa text waxaan ku bedelayaa calculate ayaan ku bedelayaa calculate ama xisaabi ayaan ku bedelayaa kaas kan kale waxaan ku bedelayaa dusha ayaan tegayaa name-ka ayaan waxaan eegayaa halkan name-ka sidan u yaala ayaa waxaan ku bedelayaa button oo sidan ah capital letter kadibna waxaan leeyahay cal kan kale waxaan ku bedelaynaa time zone ayaan sameynaynaa time zone-ku waa muhiim wuxuu naga caawin doonaa sidaan u ogaano meeshuu joogo systemka uu java iyo .net-ka ay automatically isla yaqaanaan marka waxaan leeyahay time zone oo aan wax space aan u samayn kadibna waxaan tegayaa dusha ayaan tegayaa buttonka name-ka halkan saan u yaala time zone waxaan ka dhigayaa button oo saan ah time zone ayaan saan u leeyahay button time zone kadibna waxaan soo jiidayaa radio button ayaan u baahanahay marka kan marka dambe ayaanu saxi doonaa waxaan u baahanahay radio button marka halkan ayaad ku qoraysaa si aad u heshay radio button waxaan soo jiidayaa hal waxaan leeyahay copy 2 3 and 4 sidana halkan ayaan dhigayaa qoraalka tabcan uu ka baxaya waxaa soo gelaya kaliya buttonka ayaa soo gelaya marka kan koowaad oo kan sidan ah right click ayaan leeyahay property ayaan leeyahay waxaan leeyahay add ayaan leeyahay kani wuxuu noqonayaa tabcan sidaan la socno wuxuu noqonayaa xisaabta ayuu noqonayaa add ayuu noqonayaa ku darista ayuu noqonayaa kan kadibna wuxuu noqonayaa kan kale halkan asdan dusha ayaan imanayaa radio button kale saan u yaala wuxuu noqonayaa magaciisa r d at radio buttonka ayuu ka imaanaya kaas kadibna waxaan tegayaa kan labada ayaan tegaya right click ayaan leeyahay isla meeshan ayaan ugu horreyn ka bedelayaa kan ku xiga waxaan ka dhigaynaa magaca waxaan ka dhigi doonaa subtract ayaan ka dhigi doonaa marka wuxuu noqonayaa isagana rd sub ayuu noqonayaa rd sub ayaan ka dhigayaa magacana wuxuu noqonayaa sub ayuu noqonayaa subtract ayuu noqonayaa ku dhufo ama ka jar wuxuu ahaadaba Soomaali waxa lagu yiraahdo marka text ayaan halkan ka raadinaya radio buttonka wuxuu noqonayaa sub ayuu noqonayaa oo sidan ah kan kale sub halkan ayaan soo dhigayaa kan kale oo saddexaad wuxuu noqonayaa multiple ayuu noqonayaa magaca ayaa soo horeeya iminka m capital letter waxaan leeyahay multiple sidan ayaan leeyahay kadibna waxaan tegayaa dusha ayaan tegayaa tabcan wuxuu noqonayaa rd mul ayuu noqonayaa rd oo multiple ayuu noqonayaa kan koodka ayuu saxayaa kan ugu dambeeya oo kan ah waxaan leeyahay halkan ayaan ka bilaabayaa waxaan ka dhigayaa in uu noqdo rd divisionka inuu noqdo kala qaybihii div magaca hoose ayaan usoo degayaa magaca halkan waxaan ka dhigayaa division ayaan ka dhigayaa ama kala qaybi xisaabta lagu yiraahdo marka dhammaantood sidan ay halkan usoo galeen waxaan ku aragnaa kan waan saxaynaa kan isno big deal xilliga uu socdo designka ayaa la saxayaa kan isku dhawaanshaha kala dheeraanta iyo qaabka loo sameeyo marka kan waa muhiim in dhanka name-ka aad ka bedeshid iyo dhanka text-ka aad ka bedeshid sababtoo ah koodka ma garanayo error ayaa soo baxaya kaasna mar walba waa laga ilaaliya qaabka loo sameeyo iminka waxaan ku qorayaa halkan text box ayaan ku qorayaa text box ayaan soo jiidayaa waxaan ka dhigaynaa 3 ayaan ka dhigaynaa 2 iyo 3 halkan ayaan saan u dhigayaa kan koowaad kan labaad iyo kan saddexaad oo sidan ah marka xogaa yar extension ayaan ka dhigayaa si quality-ga design-ka mar walba haddii aad tahay programma waxaa loo baahan yahay design-kaaga in uu quality yeesho kadibna waxaan leeyahay label ayaan soo qaadayaa label saddex label ayaan u baahanahay copy ayaan leeyahay paste kadibna paste ayaan leeyahay halkan ayaan saan usoo dhigayaa marka dambe ayaan saxaynaa gebi ahaan markan sidan aan usoo dhigo waxaan soo qaaday 3 text box and 3 labels ayaan soo qaaday
kadibna waxaan ka bedelay magacyada text box 1ka waxaan ka dhigayaa kan right click ayaan leeyahay property ayaan leeyahay magaca waxaan ku bedelayaa halkan text magaca textiga nameka halkan yaala waxaan ku bedelayaa txt num1 ama numberka koowaad kan waxaan ku bedelayaa right click ayaan leeyahay property waxa ii soo baxaya oo aan ku bedelayaa isla sidii text waxaan ku bedelayaa num2 ama numberka labaad num2 ayaan ku bedelayaa marka kan ugu dambeey waxaan ku bedelayaa oo halkan uu noqonayaa sidan ah in aan ku bedelo text result inaan ku bedelo right click ayaan leeyahay property waxaan leeyahay text result oo ah txt r capital letter result marka dambe ayaan tabcan fahmi doonaa qaabka uu shaqeeyo marka labelskan wuxuu noqonayaa kan sidan ah labelada wuxuu noqonayaa kan right click ayaan leeyahay property ayaan leeyahay halkan ayaan imaanaya markaan imaado hoos ayaan usoo degayaa waxaan ku bedelayaa labelada waxaan leeyahay kan no oo numberka number 1 ayaan ka dhigayaa kan labaadna waxaan ka dhigayaa tabcan number 2 ayaan ka dhigayaa no space 2 ayaan ka dhigayaa iyo ugu dambeystii kan wuxuu noqonayaa tabcan resultga ayuu noqonayaa labelkiisa oo sidan ah result ayuu saan noqonayaa result ayuu saan ugu soo baxayaa marka labeladii waan sameynay wax walba waanu isku diyaarinay marka waxaan sameynayaa kan ayaan yara saxayaa si quality-ga uu ahaado mid qof walba uu isticmaali karo isla markaana uu sidan u ahaan karo marka waan u dhaweyn karaa sidan waana ka dheerayn karaa marka design-kaaga siduu noqdo laakiin inta badan waxaa ka wanaagsan in sidan halkan loo geeyo ay dhammaan isku wada ekaadaan ayaa kasii wanaagsan kan halkan laga soo dhaweeyey marka dambe waanu yarayn karnaa kana halkan marka design-kaaga waa in uu quality ahaada mar walba waa muhiim kana sida halkan aan ka dhigo marka haddii aan doono halkan ayaan gaarsiin karaa si kan dambe uu gaaro marka kaas waa muhiim kan sidan kana sidan marka kan halkan ayaan dhigayaa marka waxaan aragnaa quality of design xogaa in ay improvement ay fiican ay sidan u samaysay ayaanu aragnaa marka sidan ayaan kusii wadayaa waa ujeedaa marka waa kay muhiimaddu waxay tahay in wax walba ay shaqeeyaan sidan ayaan ka dhigayaa waa aragta waxa ku soo baxday quality ayaa ku soo baxay marka waxaan haystaa DLL-kii Java code-ka oo diyaar ah ayaa wuxuu ii yaalaa desktop-ka ayuu ii yaalaa marka intaana sameyn waxaan doonayaa reference halkan ayaa tegaysaa marka reference waa sidan halkan ku jira dhanka midig ayaa tegaysa oo la yidhahdo solution explorer haddii aadan helin solution explorer mar walba waxaa laga soo qaadaa view ayaa la tagaa halkan waxaa laga soo qaada halkan ay ku wada jiraan dhammaan waxaad ujeeda team explorer server explorer solution explorer marka adigoo reference halkan sidan u jooga right click ayaa leedahay add reference ayaa leedahay marka referenceaha loading ayuu ku sameynayaa dhammaan reference ayaa ku jira marka waxaanu doonaynaa referenceaha in aan soo qaadno marka sidaan ku ogaana reference aan doonayno marka halkan ayaa waxa yaala code-ka Java oo halkan aan ku diyaarinay kaasoo halkan ku jira marka qaab lagu garanayo wuxuu yahay right click haddii aan idhaahdo waxaan odhanayaa sort by type-kiisa marka waxaan odhanaa java to net.dll iyo ikvm on ka hadlnay runtime.dll ikvm.gnu.classpath.dll marka waa muhiim saddexdan in aan isticmaalno marka control anoo hayo keyboardka ayaan waxaan qabanayaa kan iyo kan iyo kan ayaan isu qabanaya saddexdan right click ayaan leeyahay copy ayaan leeyahay desktopka ayaan tegayaa halkan ayaan soo dhigayaa markii aan soo dhigo waxaan ku laabanayaa dhankii iyo explorerka ayaan ku laabanayaa browse ayaan leeyahay desktop ayaan leeyahay waa kan control ayaan qabanayaa dhammaantooda sidan ayaan usoo wada qaadayaa kadibna waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay markaan idhaahdo waa ujeeda halkan ayaysaan usoo galeen marka waa muhiim in ay halkan soo galaan oo aad ku aragta haddii aadan ku arkin micnaheedu wuxuu noqonayaa wax shaqaynaya haba yaraatee ma jirto marka anoo halkan jooga marka waa in aan koodkii aan sameynaa marka calculate
halkan yaala calculator wax walba waa noo sax marka waxaanu doonaynaa in calculatorka in aan koodkii aan gelino marka kan halka loo jooga ayaa laba jeer ayaan riixaya markii saan riixo waxa ay soo baxaya asaa ku aragtaan button call underscore click kaas ayaa saan ugu soo baxay marka koodka oo aan micnayn doono halkan ayuu yaala koodka isagoo diyaar ah ku aragtaan waxaan leeyahay saan ayaan usoo qaadayaa waa kood very simple ah marka waxaan kaga bilaabayaa halkan ayaan dhigayaa waxaad isticmaalaysaa control iyo v ayaan isticmaalayaa marka waxaan ku arkaa marka ugu horreyn aan save gareeyay control s ayaan leeyahay waan save gareeyay marka waxa kaliya aan u jeedno waxay tahay kuwii aan ku darnay oo halkan ah if rd buttonkii at.checked equals true kan wuxuu noqonayaa text result the text equals convert to string waad aragtaa java to net.add number convert to double san ayuu isu bedelayaa marka koodka iyo stringa iyo conversion ku sameynaya xisaabaadka waa kan marka muhiimaddu waxay tahay waxaanu isticmaalaynaa code java ah inagoo convert ku sameyna isla markaana u isticmaalaynaa doddan u isticmaalna marka kaas waa muhiim casharkana wuxuu ku socda gebi ahaan waa kaas marka waa inaan fahno casharka muhiimadiisu ma ahan in calculator la sameeyo waa conversion ka dhacaya ee softwareka koodka javaha ah oo dotnet aanu isticmaalay ayuu noqonayaa application wuxuu ahaadaba marka waxaan kaloo aan ku aragnaa halkan haddii kale if rdmol waa la socotaan .checked equals true text result the text equals convert to string java to net dot multi-number convert dot to double text number one num1 waxaan xusnaa the text kadibna wuxuu sameynaya convert to double the text num the text wuuna soo xirayaa marka sidan ayuu noqonayaa marka kadibna markii kanaan sameyno waxaan u baahannahay dhankii time zone ayaanu sameynaysaa la socdaan design haddii aan aado oo halkan aan tago double click aan ku sameeyo kan waxaanu sameynay time zone ayaanu sameynay marka time zoneka wuxuu automatically si variable ula shaqeynaya meesha lagu sameeyo tusaale ahaan casharkan haddii aad tijaabo ku samaysaan Soomaaliya saacadda Soomaaliya ayuu soo saarayaa UK GMT ayuu soo saarayaa Greenwich time waqtiga la yiraahdo wadankan oo dhulbaraha adduunka ayuu soo saarayaa Mareykanka haddii aad joogtid Australia meesha waqtigeeda ayuu soo saaray marka kanna waa muhiim inaan aragno sababtoo ah wuxuu la shaqeynayaa jaabahan conversionka ku sameynayo la shaqeynayaa muhiimadaas ayuu leeyahay marka waxaan doonayaa si aan u hubiyo waxaan ku darayaa message ayaan ku darayaa message-kaas oo ah in uu soo sameeyo pop-up uu soo sameeyo marka waxaan leeyahay koodka waxaan leeyahay message box ayaan leeyahay dot waxaad tustaa ayaan leeyahay show dot show waxaan leeyahay isha ayaan u furayaa kadibna waxaan leeyahay time zone ayaan leeyahay waqtiga waxaan leeyahay time zone dot waxaan raadinayaa get default marka hadda saa ku aragtaan qoraalka aan sameynayo haba yaraatee kuma jiro dotnetka sababtoo ah kani wuxuu ka soo helayaa marka dambe dhanka iyo wuxuu ka soo helayaa java waa inaan ku darnaa sidoo kale get default markaas aan u yiraahdo wax uu soo qabanaya haba yaraatee ma jirto soo aan ku aragno kadibna waxaan leeyahay sidan waxaan leeyahay get ayaan leeyahay marka wuxuu sameeyey message box show time zone get default default soo qaba ayaan leenahay marka kana waa muhiim inaan barano marka waxaan leeyahay dot get display name get kadibna waxaan leeyahay display name marka waxaad aragtaa in aanan helin hint haba yaraatee aanan helin sababtoo ah kani waa in uu arkaa in java meesha uu yaalo waa inuu arkaa marka kaasna waa muhiim in aan fahno marka kadib waxaan leeyahay sidan ayaan u soo xirayaa kanna waxaan ku soo xirayaa sidan marka waxaan aragnaa inta haddii dushiisaan tago wuxuu leeyahay system.timezone does not contain definition get default ayuu saanu leeyahay marka explanation kaliya wuxuu noqonayaa haddii dusha aan saanu tago uma jeedin meel uu kasoo helaa java waxaan u jeedaa kaliya systemka C# waxaan u jeedaa dadka markii aan sameynay
in using system.collection waxaas marka wuxuu u baahan yahay kan errorkan isnaba ku bixi maayo mana shaqeynayo marka wuxuu u baahan yahay haddii button time zone la riixo waxa la doonaya event wax inay dhacaan ma dhacayaan hadda marka sababtoo ah system.time zone does not contain a definition for the get default marka sidaan ugu daraa halkan ayaan tegayaa hoos ayaan uga soo degayaa waxaan leeyahay using ayaan leeyahay weli hinta isiin maayo oo saa ku aragtaan waxaan leeyahay marka a time zone waxaan leeyahay using a time zone hadda ayaan macnaha fahmaynaa space equals waxaan leeyahay java kadibna waxaan leeyahay dot waxaan isticmaalayaa util ayaan isticmaalayaa oo kana name space markaan isticmaalo util kadibna waxaan leeyahay dot waxaan leeyahay time zone time zone kadibna waan soo xirayaa saa ku aragtaan iminka wuxuu noqday sidii caadada ahayd ayuu u shaqeeyey marka muhiimaddeedu waxay ahayd in aan helo sababtoo ah it doesn't make any sense in aan isticmaalno time zoneka waxaan u isticmaalnaa keliya in aan aragno qaabka ay isula shaqeeyaan c#.net iyo siday isula shaqeeyaan java siday isula shaqeeyaan marka siday isula shaqeeyaan markii aan ku daray using a time zone equals java.util.time zone aan soo xiray waa kana ujeeda default sana ayuu baxay marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa marka maxaan sameynaa debug waan qoraynaa markii aan qoro haddii error uusan jirin waxaa soo baxaya calculatorka iyaasan usoo baxaya ugu horeyntii waxaan aragnay time zonekii balan eegno haddii aan riixo waa ujeeda gmt standard time kaasoo ah greenwich time marka casharkan saa horeyda kugu sheegay ku sameeya soomaaliya meelo kale ku sameeya india ku sameeya waxaa soo baxaya timeka india waa variable isaga ayaa soo qabsanaya marka designka is not one of the most beautiful ma ahan laakiin muhiimadeena ma ahan designka marka waxaan doonayaa waxaan leeyahay 100 ayaan leeyahay halkan waxaan ku qoraya waxaan doonaa marka muhiimaddu waxay tahay number 1 wax baan ku qoray number 2 waxaan ku qorayaa 300 ayaan ku qorayaa marka halkan waxba ku qori maayo tabcan resultka ayaan ka doonay inuu ka soo baxo halkan iska bedelo isagoo variable ah isbedelaya marka isku dar haddii aan yiraahdo imsuu noqonaya 400 bal calculator aan ku sameeyo waa kan ujeeda 400 sub haddii aan ka dhigo subtract haddii aan ka dhigo wuxuu noqonayaa -200 haddii aan ka dhigo multiple wuxuu noqonayaa 30,000 ayuu noqonayaa haddii aan ka dhigo division wuxuu noqonayaa kan 0.333 waxsaas ayuu noqonayaa marka sidan ayaa loo isticmaalaa wax walbo aad ku dartid wax walbo aad u bedeshid automatically uu soo laabanaya san ayuu ku sameynayaa sub ka dhig multiple wuu isbedelayaa halkan ayuu iska bedelayaa calculationka resultiga halkan ayuu imaanayaa isagoo ku sameynaya saa ku aragtaan halkan if our add check is true equals text result.text equals convert to string java to net dot add numbers convert double kan ayaa kuu soo saaraya marka meel walbuu joogan uu ka bedelaya marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa marka haddii aad doonaysid code java ah in aad u bedelishid .net aad u bedeshid this is the simplest task aad ku sameyn kartid kan waa tusaale laakiin any code oo jira ayaa saan u sameynaysa marka waxaan sameynayaa waxaan idin soo dirayaa codekii iyo designkii iyo diyaara sidan ayaad u isticmaalaysaan marka raaca qaabkan raaca isku day inaad samaysaan marka waxaan filayaa casharkan gaaban ee xiisaha leh oon ku barnay qaabka java class dll ah loogu isticmaalo ASP.NET awal possible ma ahaan jirin laakiin hadda saa ku aragtaan wuu jiraa waan la isticmaali karaa nooc walba ah waxaan ku sameynay C#.NET Java code in DLL iyo Visual Studio 2013 Windows application design aan ku sameynay wixii macluumaad mar walba info@sologroups.com ayaa ku soo direysaan anigoo ah Macallin Cabdinaasir intaa wada kulmi doona waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu